رجية دمر علمية عامية أراكوا هذا يوم عوفتيجا وحنو دي كم هذا قيناه سيدا شرفت بدن إن يتسمان تأه كالجعر كله عوفتيجا وسود ويسين آد بلدكم هذا قيا والله با إن تبدري هؤلاء دي بيرهين إلا شري والله با إن هو يوي بدر حري يشري سوت شيدين وعربته دي بيرهين والله با ضيال بدري أو أن حنت كرين أو داء أو ويرة أو بحرقمته أي إلا شري سوت شيدين ما هسود وين تقف يهبل وحل سود وين يجي قارك السومالي لان قيمها يقايها وأدوها إنسان iyo halka kaga taalaan iyo sidoo idin la weeyahay ayaad qarannimada ugu soo dhaweyseen qarankiina waa idin og yahay taariikhdeedana waa leedihiin waana la idinku mahadnaqay dira waxay ka mid tahay magaalooyinka facaweynle ilaa 60kii siyaasadda laga soo dooranayay qaranka Soomaaliland ilaa isticmaalkii la kicinayay talo iyo arin iyo hogaamin ba ku lahaa maantana waxa la idinka fadhiyaa in halkii aad qaranka ka jirteen aad ka sii kordhisaan qaranka Soomaaliland uu dhismaya maanta talo ku dhismaya aqli buu ku dhismaya arrin buu ku dhismaya halkaynu joogno hore uga qaadayno baahanay taana waxaynu ku helaynaa arrin wanaagsan oo lagu arrimiyo dadka oo is ogolaada oo dhexdooda wixii shaki ah iyo wixii dhibaato laga saaro nabadda oo laga taliyo dadka deriska ah oo la walaaleeyo oo wixii dhibaatooyin sanadii hore iyo imikaba jiraan la bogsiyo da'da yar oo la baro dadka iyo dalku wuxuu isu yahay da'yarta oo la baro in dalku ku soconayo in laga ilaaliyo khilaafaadka markaynu markaa dira waxa laga rabaa inay taa hogaaminteedu noqoto awowyaashiin iyo aabiyaashiina taasay lahaayeen dhallinyaradooda iyo dadka maanta joogana taasaanu ka sugaynaa xilka idin saarana waxa weeye qaranka Soomaaliland taleex ilaa looya caddo calawla ilaa geestiin inaa ka noqotaan aqoon talo nabad kalgacal walaaltinimo ina ku horseedaan baa idinka raba xilkaas ay saaran halkan waxaan aad uga mahadnaqayaa odayaashii hadalka soo gaabiyey suldaan Saleebaan oo ka mid ah maraynu maanta malaaysiga suldaan Cabdilaahi baa ugu weyn Soomaaliland Axmed Nuur baa malaayid ku dhow waagu mahadnaqaynaa isagoo da'daasa inuu soo jeeday hadalkiina uu gaabiyey Saleebaan oo la yaqaano markuu fagaaraysta gabay ku bilaaba aad iyo aad baad sida soo dhaweynta erayga gaaba diraad joogtaa maanta kullaysa waxa firay laba beeyo gabaygeeda inaad mid dhab gabayaash farabadan baa jiray fal markaa waxa la kaftiga mid buu bilaabay waan ogahay baada ku yiri war ninka waxbaan isu dhahay maanta hadda sudan badana waa mahadsan yahay soo dhaweynta iyo intii ku daray waan isoo ogol lahay sudan badana hal baasaran waa sudaanku saldaanada ugu daaweynaa ee lagu ixtiraamo gobolka awdal oo dhan maantana dilay rideedu u taagan yahay inta aan dila ka doonayo ee waraaga ah ee dadka nabadiisa ah ee isku xirka ah ee horumarinta ah ee Soomaaliland tala wanaagsan iyo inay guurto hoggaanka loo qabanayana xilkaas ku saaran xisbiyadu markay tartamaan mucaariyo maxamed laba walaal kala bayda la iskuma colaadsado markuu dhamaado ummadda kala wada dhisaa haddii nin siyaasi uu siyaasad soo galo tartan soo galo oo yiraahdo kii iga codeeyay baan la culoobayaa ninkaas siyaasina ma hogaamiyana reerkooda iska joogo marka kii iga codeeyay kii codeeyaba labada baana mas'uula waana iisayay horada u sheegay taasina tuulan kaftooya maaha aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa raadina iyo gobolka waa maateetiin waa inoo qaranka dhusniyo walaaltinimo wassalaamu calaykum